sheekuna Faadil su'aasha xigto iyadana waxa ka timid gabar walaalaha kamid ah gabadhan waxay leedahay waxaan ahay gabar la qabo xaasada ciyaal fara badan aadi dhowr baan leeyahay bay leedahay zoojkeygii anigana waan isticmaalnahay oo wax dhibaato dhaxdeena ma yaalo oo aad baan isku qalsoonahay waxay leedahay sheekuna Faadil ilaahi subhanahu wa ta'ala isaga ayaa awlaad bixiya ilaahay awlaadu isiiyay ilmahayga cunug kamid ah ayaa ka duwan ilmahayga kale xoogaha uu yara madow yahay oo yaani jirkiisa iyo nooma eeko laakiin asal ahaan waxay tiri walaashan ayeeday labaad ayaa waxay ka soo jeedaa bantu saasay ku soo qortay walaashan marka waxay leedahay walaashan anigi يعني كما شكي قبو المهيقة زوج كيغنا كما شكي قبو لكن دب وحا إنغو هايا حاجي كيغا ولا لديس أيا آد دب وين إغو هايا ومر والبو كلمة دا أنا آد وجعلي سنين إي قاركودنا إي مالينا يان إنان جوجل دافي هيركاس مركان غاري وحليدي ولاشان وحان اسكو داي وحان دالبادي إنان DNA test أنيغو كوكالسون وقعنو غنينان أناغا دالني ayaan DNA test dhowr mar maray 3 mar ayaan gaabay leedahay walaashan si aan dadka u kalsoonida aan u tuso odayga iyo dadka aan ku qanciyo laakiin arintii ma sii istaagin wali gabdhiid maashiyaashii iyo reerahay baan magaalada ka mari lahay marka hadda waxaan gaaray heer aan zoojkeyga aan weydiisto inuu ifuro aan kala tagno so waxaan ogahay waxay leedahay walaashan inaan yani haddaan sii wada joogno inay dhibkan u sii yaraanaynin marka waxay leedahay sheekuna Faadil xaajigeygana uu ku dhageysanayaa maxaa igula talin lahayd maxaa yani aad yani diinta ka qabta dadka noocaas oo ku dhibaayo adigoo og awlaadaadii oo saxda ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyey iisoona duceey bay leedahay sheekuna Faadil falyatafaddal mashkuuran wa maajuura sheekuna alxamdulilah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ويكون مع صمتها سائلة قابك ولا سن أي أعبرتي جعلك هي حبك هي اسمك السوني ذا اللبض ولا كدحية أنا أقول أبا أوضح سؤال ما شاء الله وختمي لكن بالله ظهر inay aad isu jecel yihiin oo isku kalsoon yihiin ayaan horay u qoray oo u sajilay carruurtayda mid baan noo ekayn ekaanshuhu Allah tabaaraka jalla wa ala ayaa qof walba siduu asagu doono u abuuraa qasab ma aha hadday labadii dhashay imaqlayaan say gabadhu sheegtay ilmaha allaha idiin barakeeyo tabaaraka wa ta'ala asagana cuqdadha ku ridina idinkuna cudurro aan jirin oo allana idinku cadhoodo tabaaraka wa ta'ala dadka jecel inaad kala tagtaanna ay ku farxaan shaytaankuna uu ku farxo reerna halka uu ku dumo hadhowta carruurtu markay weynaadaanna la yidhaahdo hooyadiin iyo aabihiin waxay u kala tageen ilmahan aan carruurta kala u ekayn taasoo ilmahana cuqdad mustaqbalka ku reebi doonta ilaahay ka baqa tabaaraka wa ta'ala haddaad maqlaysaan rabbigiin ka baqa tabaaraka wa ta'ala ilmahaasna shakiga ku ridina idinkuna cudur ha isku ridina nabigeena calayhi salaatu wassalaam waqtigii saxaabada iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyiga soo degaya ayaa qisada noocan oo kala dhacdayo nin baa yiri ilmahan ma dhalin nabigu waa qanciyay sallallahu alayhi wasallam markuu u sheegay oo uu ku yiri ilmahan iima eko ama carruurta ooma eko nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri wargeel ma leedahay haabu ku yiri geelaaga midabkiisu waa nooca hal midabkaas lama ku jirtaa haa oo xagay ka keentay baad u malaynaysaa
يعني وحاويان أيديد بصايد إرقي يحدد باتشيتي قبل هذا أيضا عبيسي وحيث أيديدين لبعض أيادتك أكلك السوتشيدي ووح واضح نقول كلا سيدا درادد وحان إلي كرتها لها شعيلك الموتشفتين هي كالسوني دحدي نتالي بني آدم هذلكي يوصل إذن كالوين أما إذن كالنبقين وحان هذا الأوتشيدين لها أكلل وقصد سيدا ليسو قوريا رقابان هذا تهيه ولا لها ويلك الله شيء إلي الله كبقان وإلهي تبارك وتعالى أيضا أسنبلائي مصيبة كصلين محايا لأرمها النوعا وكلاء قفك فالسهادية الدنيا إلهي ما كأرغوست تبارك وتعالى مصيبة من أي كذبت من أسنجرين من باقورة تمادا إلهي كبقين مصيبة إذنكو إيمان دايا ريركن عروتا ما أيضا أبوري كوي هربا إذنكو ربي با أبوري تبارك وتعالى أسجر مذبكو الدونسي تبارك جل وعلا انت أدريركا اسكسو دوين لهيدين شكي جنا أتكساري لهيدين هذا أيغو شكي جلال إلا إذنكو السبب أغن قطان وإلا أي قبضي أي كوكا اللي تقيني سبح شرديق أي قادو إلهي كعصب تبارك وتعالى هذا الكيغا هدو إذن سوقارو قبضنا وحالي هاي قبضي إنك السير أغهي قفك وحا لقبض بريا مركا دموات شلعا حدنا أركتين إذا تشريع باكا مغضا إنا الماء بالشي أو آن هبتو إنا سبح شير آتيك كقادو أريقا وحاول أرنكاسي خطروي عذركاها اسكريدين نحضا حيرو قلبك أتكيسو يانغو تشويشيني كوا هربا مدبدا وما آذن ييرين كان مدب كان عدوغو وما آذن ييرين marka yeena dhicin mar labaad ilma in dhiiga laga qaado ilaahay looga baqa tabaaraka wa tacaala waxa ka daran erayga aan ka naxay waxa weeye su'aasha awalkeeda iyo aakhirkeeda iska hor imaadayo waanu isjecelahay waa isku kalsoonaha ii soo hormartay haddana gabadhi waxay tiri ninkii hadda waxaan rabaa inaan ka dalbado inuu ifuro ma ninkii xaqiisa ku siin kari waayay ma reerkii buu dhaqan kari waayay ma nimankii buu ka raacay oo asagii baa shakiyay oo waxa leedahay laftiisaba qababa ilmahan inaana dhalino inuu sadayno aan gogol dhaafay intaba kaama aana fahmin arrinku nooca haduu yahay wax banaanka ka bax idin ka baxsan wax gurigiina ka baxsan adeera iyo maxaa la yiraahdaa iika qolo kale oo idin ka baxsan daris iyo dad idin ka baxsan inaad reerkaadina u dumiso caruurtaadina aad shakiga noocaasa laftaada aad samayso waxa weeyaan khatarteeda inay waxaan kugula talin oo labadiinaba idinkula talin intaad culamo u yeerataan guriga qur'aan ku aqrisataan oo shayaatiinta aad iska naartaan oo caruurtiina qur'aan ku aqridaan iyo gurigiina isha bini'aadamka ilaahay inuu idinkaga xijaabo oo aad labadiina laftiina qur'aan isku aqridaan oo ducaysataan wax alla wixii tashwiish ah oo dhexdiina soo galay iyo wixii dambi oo ilmaha laga galay intaba ilaahna ha looga noqdo shaytaankana iska naara mar dambana ku ballan ku gala inaydan bini'aadam warkii dhegaysanin ama cidda idinla timaadaay idinkoon afxumayninan aflagaadaynin waxaad ku dhahdaan shayaatiin baa idin saarane shayaatiinta iska naara gabagabada iyo kelimadu waa arrin laga murgo oo laga xanuunsado waxaan ku gabagabaynayaa reerkiina dhaqda gabadhay reerkaaga ha duminin ninkana waxaan dhihi lahaa ma aha reerkaaga iyo ilmahaaga in lagu ciyaaro shakina lagu tuuro xaaskaadana la dulmiyo waxaad yeelaysaa nimanka aad walaalaha tihiin edab u yeel oo waxaad dhahdaa edab iga yeesha reerkayga oo edab iga yeesha caruurtayda oo edab iga yeesha maxaa la yiraahdaa akhlaaqiyaadka aniga gurigayga banaanku dhalay halla iga maro oo banaanka mari billahi tabaaraka jalla wa ala oo adigana reerkaaga difaaco
وعرورتاada difaaco oo yaa mataqaanaa looga soo dhicin xaggaaga gabar yar adiguna reerkaaga ha iska duminin ilmahana yaan cuqdad la gelinin inta ayaa ii muuqata ilaahay baa si xaqiiqada iyo cilmiga garan wallahu a'lam